السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين سو دوادا مقعي ومهد وحانا هيلتي كوتش أما توبرا عافيمات عاو وحن بلاوينا بارتي 2 برامج كيني نو سعودي قاب كانوا دبي ميسان كيغا إنا دحكو اوغاتو إن شاء الله كدبنا مركز اوغاتين أنا إذن سيو تردي iyo markaas waxaad idinkuna sameey lahaydeen waxa jira dad badan oo maanta aanu noloshan ku nool waxa jira dad badan oo maanta u baahnay tibisiga helaan iyo talo iyo tusaale intaba iyo coaching diyaarana idin laha insha Allah haddii aad nagu cusub tahay insha Allah subscribe samee si aad ula socoto barnaamijyadeena dambe markastana aad markaa ula socoto meeshay wax marayaan iyo markaa casharada soo galaya si aad ula socoto uguna xirnaato like iyo share samee asxaabtaada u sii gudbi si markaas ayaguna ay uga faa'iideystaan insha Allah biidnillaahi kariim soona dhawaada meel kasta oo markaas caalamka ka joogtiin mar kale insha Allah biidnillaahi kariim haddaba sideen u dhimay miisaankayga ayaan wadaynaa insha Allah biidnillaahi kariim caawna waa baarti 2 insha Allah biidnillaahi kariim taariikhduna waxay ku beeyan tahay 17 bisha 8 2018 insha Allah biidnillaahi kariim waxaan ka soo sheekeeyay habeen dhaweed baarti 2 baarti 1 kulli qofkii markaa daawaday ayaa daawaday insha Allah qofkii aan daawana insha Allah inuu daawado qaybta baarti 1 insha Allah haddaba waxaan isku dayay miisaankaygu wuxuu soo koray 2003 waxaan ahaa jiray tukaanle anigana gacantayda markaa iskugu keenay inuu miisaanku i koro waxaan ahaa jiray qof aad iyo aad caato u ah waxaan tukaan ku lahaa suuqa bakaaraha way yaqaaniin dhalinyaro badan oo maanta waxa way daawo doona fiidiyogan aniga gacantayda markaa iskugu geystay inaan miisaanka kordhiyo waxaan jeclaa jiray inaan cayilo Soomaaliyana bariga hore waad ogeydeen waxa la xiisay jiray qofku inuu calool leeyahay ama uu miisaan leeyahay oo kale dabcan waxaan sameeyay waxaan isku dari jiray tukaanan lahaa waxaan isku dari jiray caana booraha la yiraahdo ama koostada saad u taqaaniin iyo waxaan isku dari jiray baraf iyo sokor waxaasan markaa cabi jiray kadibna jirkaygii markaa inuu naaxa ayuu keenay kadibna cuntooyinkii kale wixii markaan sii cunay baasadii bariiskii burkii sokortii aad baan u sii cayilay haddaba 2003gii miisaankii soo koray oo anu gacantayda aan markaas iskugu geystay ayaan 2017 iska dhimay insha Allah qaabkaan u dhimay way dambaysaa insha Allah biidnillaahi kariim laakiin waxa ka horeysay intaan miisaankayga dhimin waxaan isku dayay si kasta inaan miisaankayga u dhimo waxaan isku dayay inaan xataa markaas sameeyo qaab kasta iyo markaas si kasta markaas aanu arkay in miisaan loo dhimi karo laakiin aan ku guul daraystay waxaan isku dayay inaan markaa cuntada iska go'o oo hal waqti wax cuno miisaan igama dhicin inuu ugu sii bato ma ahane waxaan isku dayay inaan gym aado iyadana miisaan igama dhicin inuu ugu sii bato ma ahane waxaan isku dayay wax kasta oo markaa qof bini'aadan isku dayo miisaankaygu marnaba uu dhici diiday hal mar aan ugu fiicnaa 2009kii ay ahayd waxaan sameeyay baahi badanna waan isku dilay waxa weeye cuntadaydiina aadan u yareeyay marka miisaanku uga dhacay laakiin waxa igu dhacay wax miisaankayga ay fiicnaa waxa igu dhacay waxyaabo badan oo markaas caafimaadkayga halis geliyay waxa igu dhacay markaa dhiig la'aan wax la yiraahdo waxa igu dhacay tabar yaro waxa igu dhacay inaan low energy noqdo waxa igu dhacay inaan anigii dhama u ekaado qof geed laga soo furay ama xarig laga soo furay waxyaabahaas oo dhan ay soo gaaray maalin anoo jimco u socda masaajidka ayaan xataa baaskiil aan watay ila rugmaday maxaa yeelay jirkanu waxyaabihii ku jiro dhanaan ka saaray baahiyaan markaa isku dilay iyo nafaqo darro iyo waxyaabahaas oo dhan haddaba waxaas oo dhan waan soo sameeyay gymkan haddana waxaan bilaabay inaan dhowr maraan gym galay waan isku dayay markaa inaan gym tago miisaankaygana aan gymka u isticmaalo gymka ku dhimo miisaanka gymka waxa ugu dhacayay markaan soo sameeyo orod badan oo soo jimicsado oo calories badan soo gubo guriga imaan jiray waxaan cuni jiray markaa cuntooyinkan cuni jiray hore sidii markii hore aan u noolaa maxay qofku markuu rabo inuu isbedel sameeyo waa inuu qaabka u noolaa qaaban ahayn u noolaadaa haddii kala ma sameey karo isbedel marka waxaan u noolaa qaabkaygii hore marka only gymka baan soo kordhiyay
laakiin wax kale oo aan soo kordhiyay ma jirin. waxaan cuni jiray markaan guriga imaado oo baahi badan hayso cuntooyinkii aan cuni jiray sida bariiskii iyo baastadii iyo burkii iyo daqiiqdii san hore kugu soo sheegay kuwa ayaan cuni jiray. laakiin waxa igu dhici jiray inaan markaan cuntadaas cuno dhergo wax si fiican u dhergo hurda ay qabato caajiso cuntadii markaa jirkayga ka buuxdana aan seexdo ayaa markaa igu dhici jirtay. miisaankaygu markaa inuu dhaco markii la rabay wuu sii kordhayaa. sababtuna waxay tahay waxaan soo gubay 700 ama 500 oo calories. waxaa markaas igu tagtay markaan jiimkii ka imidkeed laga yaabo inay 1000 ka badan tahay. marka aniga unbaa markasta 300 aan plus ahay, 400 aan plus ahay, 200 aan plus ahay. dan waxaa dhacday in aan jiimkii naco, waxaa dhacday inaan niyad jabo, waxaa dhacday inaan yaaboon ilaa maxaa jira maxaa qaldan, waxaa dhacay inaan qof weyn u ekaado, midabkaygii dhalinyaranimadeydii quruxdaydii shaybkaygii waxaasoo dhan inay meesha ka baxaan, niyad jab badan igu dhaco. suuqa markaan u baxo maaga dhar soo gado inaan 3XL wax ka yar aan haweysan XL iyo waxaas iyo 2XL inaan qaato calooshii halkan iska taalo. waxay igu dhacday xataa samarka weligaa samar iyadoo ah qorrax jirto jaakad ma qaadato. duruufta iyo dantu hadday kugu kalifto waad qaadanaysaa. iyadoo qorrax jirto inaan jaakad qaadan jiray. way jiraan dad badan oo maanta iyadoo qorrax u hayso ama qorrax jirto ama iska leersa lahaa maanta jaakad qaadanaya isagoo isla calooshaada qariyaan lagu arkin cayilkaaga waxaaga naasahaaga waxaas inuu marka qofkii la arka diidayo ka xishoonayo qof dhalinyaro yahay. maanta waxa weeye iyadoo qorrax jirto inaad jaakad qaadato haddaan runta la isku sheegin ama aan si dhaba loo wada hadlin ama aan wax kastoo qofku noloshiisa soo maray uusan ka sheekaynin waxaan xal helaynin dadka kaloo naga dambeeya, waxaan noloshooda bedelaynin dadka naga dambeeya. runtana lama qariyo. wixii markaa caafimaada ama ku saabsan qurux iyo lifestyle iyo inuu markaa qofku noloshiisa bedeli karo isagoo haysta markaas qof kale walaalkiisa wado oo maray inuu maro ama tale iyo tusaale ka qaadanaya ayaa la qaataa. maanta qofka waxaa laga yaabaa hadduu ka sheekeeyo historygiisa iyo taariikhdiisa qof kale inuu yidhaah waaw qofkan waalan yahay waxaas uga sheekaynaya. muhiim maaha taasu, muhiim maaha waxaad ahaa jirtay, laakiin muhiimaddu waxay tahay halkaad maanta joogto. halkaad joogi jirtay muhiim maahan. waxaad ka dhigataa history iyo taariikh iyo markaa inaad dadka kale uga faa'iidayso. halkaad maanta joogtana dadku ay soo gaaraan. muhiimaddu waa intaas. waxaa xun kaliya qofku asagoo meeshiisii hore weli jooga inuu markaa boogihiisa danqiyo ama uu ka sheekeeyo dhibaatadiisii hore uu soo maray. waxaan meel xal kalena uusan haysin ama meel kale uga baxay aysan jirin. taasaa dhibaato ah. laakiin mar haddaad problemkii ka baxday xalkiina aad hayso qof kasta oo maanta u yeertana aad u sheegi karto noloshaada waxaad ku bedeshay kana caawin karto taas waxa weeye no problem. waxaa daran qof inaad tiraa noloshaada bedel wuxuu ku bedeli lahaana aad u sheegi karin. waxaa daran qof inaad tiraa miisaan dhin qaabka u dhimi karana aad u sheegi karin ama aad ka caawin karin. waxaa daran qof inaad tiraado waxaan bedel ama sidan isku dhaan haddana aad u sheegi karin tala iyo tusaale kale iyo meel kale wuxuu ku bedesho. haddaba marka taariikhdu aad bay isku qoraysaa. qof kastana waxaa jira wax maanta gubaya, waxaa jira qof maanta miisaanka cabanaya, waxaa jira qof maanta miisaankan aan ka hadlayno maanta la dhimayo qof raba inuu kordhiyo. waxaa jira qof maantay dukaanka inta taga raba inuu soo labisto iidda u soo labisto jaakaduu gashtaba aysan la ekayn, surwaalkuu gastaba aysan la ekayn, funaanaduu gashtaba aysan la ekayn. ma ogid qofkaas waxa uu dareemayo, ma ogid strayska iyo walwalka ku furan iyo problemka iyo niyadjabka ma ogid. laakiin waxaa og qofkii soo maray ayaa og. mahmaahay maxay ahayd wixii la dhihi jiray walaal inuu macaan yahay ninkii madiyaha og. macnaha cayil inuu xun yahay ama uu fool xumo yahay qofkii soo cayilaa og isaga wax laga weydiinayaa. haddaba muhiimaddu waxay tahay noloshaad doonta ku jir, miisaankaa rabta lahow, meeshaa rabta joog. muhiimaddu waxay tahay waad dhimi kartaa miisaankaaga weliba hab caafimaada adigoon quruxdaada ku cayaarayn, midabkaaga ku cayaarayn, hilibkaaga iyo waxaan ka wada boodhigaaga ku cayaarayn, noloshaada iyo mustaqbalkaaga ku cayaaraynin. hab caafimaada u nool 5 waqti wax cunaya ayaad dhimi kartaa miisaankaaga.
qaabkaad u dhimi kartiinna waan idinla sheer garaynayaa waana idin sheegayaa insha allah waana idin soo wadaa hayga degdeginina hayga fududaanina hayga ordinina insha allah ku xirnaada barnaamijkan la socda u gudbiya asxaabtiina iyo qaraabadiina iyo faamilkiina si markaas ay xal u helaan hadugu haddaad daawato muuqaalkan waxaan ka sheekaynaysa saameyn kugu lahayn waxaad u gudbidaa mid kaloo walaalkaa ah gabar kaloo walaasha habaryarta hooyada eedida maxaa yeelay laga yaabee inay wax ka faa'iido adiga laftirkaagu haddaad la socoto laga yaabee in wax badan kaaga kordhaan laga yaabee in waxa aan soo marnay kugu soo socdaan xal marka si aad u hesho ama aad dadkaba xataa aad ula tali karto waa in markaa aad ka faa'iidaysato insha allah caawa halkaasaan kusoo gabagabaynayaa insha allah qaybtii labaad biidni illaahi alkariim waxaan soo wadaa markaa qaybihii kale insha allah biidni illaahi alkariim iyo noloshaydu sida isku bedeshay iyo sidaan ku helay furaha noloshayda inay isbedesho waxyaabihii aan isticmaalay iyo cidda iga caawisay iyo meelaha aan ka helay iyo qaabkan ku helay waxyaabahaasoo dhan iyo guushaydii ayaa soo socda waxaa kaloo soo socdoo kale oo aad iyo aad muhiim u ah noloshaan ku jiri jiray oo kale dhanka kale ama shaqo ha noqoto ama maaragta wax kasta ha noqoto ayadana waan taaban doonaa iyo maantay noloshayda dhanka xataa shaqo insha allah miisaan kaliya maahan kumbuleed noloshayda dhan wax badan ka bedelay haddaba adigaba laga yaabee inta anigu aan soo marana inaad ku sugan tahay bisbedelkan anigu helay dhan walba inaad heshay inaad u baahan tahay haddaba ha moogaanin ku xirnow barnaamijkan insha allah ha ka naga masuugin inaad samayso subscribe inaad samayso inaad markaa like iyo share u samayso asxaabtaada insha allah biidnillahi alkariim halkan hoose ayaad markaa videoga hoostiisa ayaad ka heli doontaa contactigayga iyo facebookayga iyo xiriirkayga iyo teleefonkayga whatsappkayga insha allah inta aan ku kulmayno barnaamijkan midka nooxiga insha allah party 3 waa walaalkiin mahad axmed oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.